Muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa absolute value equationska ama isleegyada qiimaha sugan. Waayo tusaalaha hore waxaynu odhanayaa absolute value of -3 waxay noola mid tahay +3 waayo dhinac kasta waxaynu ku dhufanaynaa -3 micnihii markii sida ugu jirto calaamadda absolute value waxay noola mid tahay minus times -3 dabeedna labadan minus markay isku dhacaan waxay noo soo baxaya +3 sidaa daraaddeed waxay absolute value of -3 waxay noola mid noqonaysaa intaas. Mar kale ka waran haddii qaabkan u taalo absolute value of 9 minus 10 labadan aynu kala jaraynaa dabeedna waxa soo baxaya absolute value of -1 absolute value of -1 na waxay noola mid yahay +1. Okay, mar kale haddii san u taalo ka waran 8 plus 9 keliya ta labadan aad isu geynaysaa dabeedna waxa soo baxaya 17 absolute value-na wuxuu kaga baxaya 17. way ka waransa haddii ay qaabkan u taalo x minus 4 waxay kula mid tahay 3. Okay, markii qaabkan u taalo waxay yeelanaysaa laba xal. waxaynu odhanaynaa x minus 4 waxay kula mid tahay 3 ama x minus 4 waxay kula mid tahay -3 dabeedna waxaynu wareejinaynaa afartaynu wareejinaynaa x waxay kula mid tahay markaa 4 aan idhahdee 3 plus 4 4ku markuu xaggan usoo wareego waxau qaadanayaa calaamadda plus ama x waxay kula mid tahay -3 plus 4 dabeedna x halkan waxay noola mid noqonaysaa labadan markaynu isku geyno waxay noo soo baxaya 7 ama x waxay noola mid tahay 1. Okay, labadan qiimo marka ayaa waxaynu ku bedeli doonaa bal inay run yihiin iyo in kale bartay noo taalla x si aan u hubino. Marka intan waa inaan iska masaxna. waayahay waxa weeyaan marka 7kiina ku horeynana 7 minus 4 ayaa waxay noola mid tahay 3 labadan haddaad kala jirto waxa weeyaan absolute value of 3 waxay kula mid tahay 3 marka absolute value of 3 waxay kaga baxaysaa 3 sidaa daraaddeed 3 waxay noola mid tahay 3 marka qiimaha u horeeya waa ku sax qiimaha labaadna aynu hubino waxa weeyaan qiimaha labaadna waa 1 minus 4 ayaa waxay noola mid yahay 3 labadan markaad kala jirto waxaa soo baxaya -3 marka -3 waxay noola mid yahay +3 -3 na absolute value wuxuu kaga baxayaa +3 sidaa daraaddeed +3 waxay noola mid yahay +3. Okay, tanse ka waran x plus 4 ayaa waxay noola mid tahay 9 mar kale sidii aynu tiitan ka horeysa u xalinay unbaynu u xalinaynaa dabeedna waxaynu odhanaa x plus 4 waxay noola mid tahay 9 ama x plus 4 waxay noola mid tahay -9 halkii positive-ka ahayd unbaynu ka dhigaynaa minus sidaa daraaddeed x waxay noola mid tahay waxaynu wareejinaynaa 4ka dabeedna waxay noqonaysaa 9 minus 4 ama x waxay noola mid tahay -9 minus 4 sidaa daraaddeed labadan markaynu kala jirno waa 5 x mar waxay noola mid tahay 5 mar kalena x waxay noola mid tahay -13.
marka minus 13 iyo minus 5 aynu ku eegno. Way 5 plus 9 ayaa waxay noola mid tahay 9. Labadan markaad isku geyso waa 9. Absolute value of 9 waxay noola mid tahay 9. Marka absolute value-ga 9 wuxuu kaga baxayaa waa 9 un. Sidaa daraaddeed 9 wuxuu noola mid yahay 9. Mar kale aynu qiimahan ku tijaabino oo ah x waxay noola mid tahay minus 13. Absolute value of minus 13 plus 4 ayaa waxay noola mid tahay 9. Labadan haddaynu kala jarno waxa weeyaan minus 9. Absolute value ku jira ayaa waxay noola mid tahay 9. Absolute value marka 9 wuxuu kaga baxayaa waa 9. 9 waxay noola mid yahay marka 9. marka tusaalaha saddexaad waxa weeyaan x plus 7 ayaa waxay noola mid tahay 3. isla qaabkeenu tan ka horeysa oo xalinay un baynu u xalinaynaa. Marka waxaynu odhanaynaa x plus 7 ayaa waxay noola mid tahay 3 ama x plus 7 ayaa waxay noola mid tahay minus 3. sidaa daraaddeed waxaynu wareejinaynaa 7ka x waxay noola mid tahay 3 minus 7 ama x waxay noola mid tahay minus 3 minus 7 maadaama 7kaas isku bedelayo minus markaad xagaa wareejiso. Okay, labadan markaynu kala jarno waxay noo soo baxayaa minus 4 x marka waxay noola mid tahay halkan minus 4 mar kale x waxay noola mid tahay minus 10. minus 10 iyo minus 4 aynu ku bedelna marka halkii ay noo taala xtu. minus 4 plus 7 ayaa waxay noola mid tahay 3. labadani marka way kala go-ayaan waa minus 4 plus 7 oo micnaheedu yahay 7 minus 4. sidaa daraaddeed waa maxay? waa 7. waa 3 aan idhaahdee. marka absolute value of 3 ayaa waxay noola mid tahay 3. 3ga wuxuu absolute value 3gu absolute value wuxuu ka baxay waa 3. daban 3 waxay noola mid tahay 3. mar kale minus 10 ayaynu ku bedelaynaa plus 7 ayaa waxay noola mid tahay 3. dabeedna labadan aynu isku geynaynaa waxa weeyaan minus 3. hadda micnihii tirada badan ayaa minus ka wadata marka tirada badan maadaamay wadato waxa soo hadhay waxaynu raacinaynaa minus ayaa waxay noola mid tahay 3. minus 3gana wuxuu kaga baxaya marka absolute value-ga positive 3. positive 3 ayaa waxay noola mid tahay marka positive 3. tusaalaha u dambeeyana waxaynu odhanayaa 3x plus 4 ayaa waxay noola mid tahay 5. dabeedna sidii caadiga ahayd ee kuwii ka horreeyay aynu u xalinay un baynu u xalinaynaa. waxaynu odhanaa 3x plus 4 ayaa waxay noola mid tahay 5 ama 3x plus 4 ayaa waxay noola mid tahay minus 5. dabeedna afartaynu iska wareejinaynaa halkan xaggan markay u wareegto dhinaca midigtana waxay noqonaysaa minus 3x ayaa waxay noola mid tahay minus 5 minus 5 aan idhaahdee 5 minus 4 ama 3x ayaa waxay noola mid tahay minus 5 minus 4. mar kale 3x ayaa waxay noola mid tahay marka labadan markaynu kala jirno waxay noo soo hadhaya 1 minus 1
ama 3x ayaa waxay noola mid tahay minus 9. xaggan waxaynu u qaybinaynaa 3, xaggana 3, mar kale xaggan 3 baynu u qaybinaynaa, xaggana 3. sidaa daraaddeed 3dan iyo 3dan waa isla baxayaan. waayo marka x waxay noola mid noqonaysaa, balse minuskaas kuma jirin meesha, marka minuskaasi ma raacsana, waayo waxay ahayd 5 minus 4 ay ahayd, marka minuska wayna reebnaa. x waxay noola mid tahay 1 over 3, ama x waxay noola mid tahay labadan markaynu isku qaybinana, horta labadan isla baxayaan, labadan markaynu isku qaybinana waxay noo saaraya -3. okay, marka qiimayaashani inay run yihiin iyo inay been yihiin aynu hubino. aynu ku bedelno marka halkay noo taala x2 3 times 1 over 2 1 over 3 plus 4 ayaa waxay noola mid tahay 5. okay, waxay noqonaysaa marka 3 over 3 plus 4 3 over 3 plus 4 ayaa waxay noola mid tahay 5. labadan haddaynu isku qaybino waa 3, marka hal loo geeyay 4 ayaa waxay noola mid tahay 5. sidaa daraaddeed labadan haddaa isku geysto waa absolute value of 5 ayaa waxay noola mid tahay 5. 5 marka waxay noola mid tahay 5 maadaama 5 ay absolute value ka baxayso 5 keliya. okay, tan kalena aynu hubina haddaba. absolute value of 3 qiimaha kalena waa -3 plus 4 ayaa waxay noola mid tahay 5. dabeedna labadan marka isku dhexan waa -9 plus 4 ayaa waxay noola mid tahay +5. labadan haddaynu kala jarno waa -5 ayaa waxay noola mid tahay 5. dabeedna aan idhaahde 5kani absolute value wuxuu kaga baxayaa +5. sidaasina ay labadan qiime sax ku yihiin. waayo tusaalaha horeeya waxayna leeyahay 3 minus 4x ayaa waxay noola mid tahay 8. waayahay qaabkaynu usoo xalinaynay kuwii tanka horeeyay baynu iyadana u xalinaynaa. dabeedna waxaynu odhanaynaa 3 minus 4x ayaa waxay noola mid tahay 8 or 3 minus 4x ayaa waxay noola mid tahay -8. mar kale waxaynu wareejinaynaa markaa 3ga 4x ayaa waxay noola mid tahay markaa 3 markaynu 3ga soo wareejino minus ayuu qaadanayaa or 3 aan idhahdee minus 4x ayaa waxay noola mid tahay -8 minus 3. dabeedna waynu kala jaraynaa labada dhinac midigta xiga waxay noqonaysaa 5 or minus 4x ayaa waxay noola mid tahay -11. dabeedna halkan waxaynu u qaybinaynaa -4, halkan waxaynu u qaybinaynaa -4. sidaa daraaddeed 4 waxay noola mid tahay -5 loo qaybiyey waxay noola mid tahay x, marka waxay noola mid noqonaysaa 5 minustan aynu raacino loo qaybiyey 4. waayahay ama x waxay noola mid noqonaysaa -11. halkan 4 baa la socotay marka 4tii xaggan aynu u qaybinaynaa labada dhinac waxaynu qaybinaa 4 halkaa 4 halkan 4 -4 weliba weyaan. dabeedna labada minus waxay isku bedelayaan plus, marka minustani meesha way ka baxaysaa. waxay noqonaysaa marka x waxay kula mid tahay 11 loo qaybiye 4, ama x waxay noola mid tahay 5 loo qaybiye 4. qiimaha kalena waa intan. waayo labada qiimaha hadaba aynu ku bedelo barta x inoo taala si aynu u cadayno inay sax yihiin iyo inaanay ahayn.
waayo waxaynu odhanaynaa marka 3 minus waxaynu ku horeynaynaa qaybtanaynu ku horeynaynaa 3 minus 4 times minus 5 loo qaybiyey 4 ayaa waxay noola mid tahay 8 dabeedna markaynu isku dhufano afarta iyo jajabka ama intan lakabka ah waxay noqonaysaa plus halkani 20 loo qaybiyey 4 ayaa waxay noola mid tahay 8 marka intan jajabkan iyo aan idhaahday tirada lakabka iyo saddexda la isku keenayo aynu gooni ula baxno waxay noqonaysaa 3 plus 20 loo qaybiyey 4 xaggan marka waxaynu u qaybinaynaa 1 hoostana marka labadooda waxaynu raadinaynaa hooseyaasha aan idhaahday waxaynu raadinaynaa isirka ugu yara wadaagaan least common multiple kaan idhaahdo dhufsanayaraha ugu yara wadaagaan ayaynu raadinaynaa dabeedna 4 waxaynu isku qaybinaynaa 1 waa 4 afartii baynu ku dhufanaynaa saddexdaas sare waa 12 mar kale 4 waxaan isku qaybinaynaa 4 waa 40 iyo 40 waxa weeyaan hal baynu ku dhufanaynaa 20ka sare waxa weeyaan 20 dabeedna waa 32 loo qaybiyey 4 okay marka 32 loo qaybiyey 4 aynu ku bedelo halka inoo taalo halka intani inoo taalo aynu ku bedelo 32 loo qaybiyey 4 okay waxay noqonaysaa marka 32 loo qaybiyey 4 ayaa waxay noola mid tahay 8 absolute value bay ku jirtaa marka labadan absolute value waxay ka baxayaan aan idhaahday markaad isku qaybiso horta intayna absolute value waa ka saareen 8 weeyaan 8 marka waxay kula mid tahay 8 absolute value of 8 waxay kula mid tahay 8 sidaa daraadeed 8 waxay kula mid tahay 8 waayo marka qiimahaynu hubinay wuxuu ahaa 5 loo qaybiyey 4 markaynu tijaabina mar kale 11 loo qaybiyey 4 waxay noqonaysaa marka absolute value of 3 minus 4 times 11 loo qaybiyey 4 ayaa waxay kula mid tahay 8 waayo afarta iyo haddaynu isku dhufano 11ka waxay noo soo baxaya 4 iyo 40 loo qaybiyey 4 ayaa waxay noola mid tahay 8 labadan haddaynu isku qaybino waa 11 marka 3 laga jaray 11 ayaa waxay noola mid tahay 8 labadan haddaad kala jarto waxa weeyaan 8 minus 8 weeyaan weliba maadaama 11ka oo ah tirada weyn ay wadato minuska ayaa waxay kula mid tahay 8 absolute value of minus 8 waxa weeyaan 8 sidaa daraadeed 8 waxay noola mid tahay 8 waayo marka waa sax ayay ka dhigan tahay labada qiimayna soo saarayba qiimaha minus 5 labada qiime ee kala minus 5 over 4 iyo qiimahan inoo qoran 11 loo qaybiyey 4 labadaba waa sax way isla egtay xigtay aynu gelayna waxayna leedahay x minus qaws 3 plus 2x qowskaad xidhaysaa ayaa waxay noola mid tahay waayahay marka sidaynu uga shaqeynaynaa markii qaabkan u taalo ugu horeyn minus tahay waxaynu ku dhufanaynaa inta qowska ku jirta dabeedna waxay noqonaysaa x minus 3 minus 2x micnihii haddaad minuska ku dhufato 3ga waxa weeyaan minus 3 mar kale haddaad minusta ku dhufato positive 2x waxa weeyaan minus 2x qowskaad xidhaysaa ayaa waxay noola mid tahay 6 okay marka egastan iyo minus 2x-kan waa inaad kala jirtaa sidaa daraadeed waxay noqonaysaa x aan idhaahday minus 3 minus 2x xtan plus baa xaga ugu qarsoon plus x ayaa waxay noola mid tahay 6 dabeedna mar kale markaynu dee kala jirno labadan
waa minus 2x iyo x-kan waxay noo soo baxayaan x keliya minus 3 minus x ayaa waxay noola mid tahay 6 marka intani qaabkaasay isku bedelaysaa marka halkan waa inaan marka aynu dib u raadinaa maxaa yeelay qiimaha x inagoo qaabkii hore aynu marayna dabeedna waxaynu odhanaynaa minus 3 minus x ayaa waxay kula mid tahay 6 maadaameyna labada meelood labada equation maadaameyna noo wada qaadeen kulba mid ayaynu qoranaynaa waynu soo saaranaa qiimaheeda marka imika tanaynu qoranaynaa dabeedna waxaynu odhanaynaa waxaynu wareejinaynaa saddexda aan idhahdee minus x ayaa waxay noola mid tahay 6 plus 3 dabeedna x waxay noola mid tahay 9 markii labadan isku geyso 3 iyo 6 9 weyaan laakiin x minus bay noola socotaa x marka waxay noola mid tahay minus 9 mid baynu soo saarnay ka kale marka qaybta waa inaan iska masaxnay xigta dhinaca bidixda waayo equationtaas laakiin waynanu xasuusnaanaa intanaynu masaxaynaa intaasaynu masaxaynaa equationtana xagga sareynu ku qoranaynaa waxa weeyaan minus 3 minus x waxay noola mid tahay 6 inta markaaynu iska masaxno waayahay marka intaynan ku tijaabin horta qiimaha kalena aynu la soo baxno qiimaha kale marka halkan positive ay ahayd qaybtii waxaynu odhan minus tahay waxaynu odhanaynaa minus 3 minus 3 minus x ayaa waxay noola mid tahay minus 6 dabeedna waxaynu wareejinaynaa minus 3ga waxay noqonaysaa marka x ayaa minus x ayaa waxay noola mid tahay minus 6 plus 3 maadaama 3gani marka uu soo wareego uu noqonayo plus waayahay minus x waxay noola mid tahay minus 3 dabeedna dhinac kasta waxaynu qaybinaynaa minus x la socota sidaa daraadeed x waxay noola mid tahay positive 3 marka labadan qiimo ayaynu xigteynaa inta kalena waa iska masaxnaa waayo x waxay noola mid tahay mar x waxay noola mid tahay aan idhahdee waxay noola mid tahay minus 9 mar kale x waxay noola mid tahay positive 3 dabeedna labada qiimo ayaynu ku bedelaynaa waayahay waxay noqonaysaa marka equationta sareynu ku bedelaynaa marka waxaynu ku bedelaynaa equationtaas aynu 3 soo qaadano marka 3 minus 3 plus 2 times 3 ayaa waxay noola mid tahay 6 absolute value-ga dabeedna absolute value of 3 minus labadan horta labadan isku qarinaa 3 plus 6 ayaa waxay noola mid tahay 6 mar kale dabeedna waxay noqonaysaa 3 minus 9 absolute value ayaa waxay noola mid tahay 6 labadan gudaha waynu kala jiraynaa marka waxay noqonaysaa 6 minus 6 ayaa waxay noola mid tahay 6 dabeedna absolute value-ga 6 wuxuu ka baxaya waa 6 6 waxay noola mid tahay markaa 6 waayo qiimaha 9ka minus 9ka soo harayno bal aduu ku hubi inuu run yahay iyo in kale